kadib markii shalay gelinkii dambe weerar ay ku dileen al-shabaab laba ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle oo marayay inta u dhaxaysa degmooyinka Balcad iyo Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamul goboleedka Hirshabelle soo gaaray magaalada Beledweyne iyo madaxda maamulka gobolka Hiiraan iyo kan degmada waxay si wada jir ah uga tacsiyeeyeen geerida ku timid labadaas xildhibaan iyo sidoo kale askartii la socotay intaba ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay isla markaana wafdigan ku soo dhaweeyay magaalada Beledweyne gudoomiyaha degmada Beledweyne Maxamed Cismaan Cabdi Qalaafo waxaa sharaf weyn oo aan soo dhaweeyno maanta wasiirada iyo xildhibaanada oo hogaaminaya wasiirka caafimaadka maamul goboleedka Hirshabelle wasiir adiga iyo wasiiradaada iyo xildhibaanada soo dhawaada waxaa halkan magaalada Beledweyne idinku soo dhaweeyay maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo xildhibaanadii hore fatahaadka biyaha webiga Shabeelle dadka muxuu maanta bixinayay sidoo kale waxaa halkaas ka hadlay wasiirka caafimaadka maamul goboleedka Hirshabelle Cabdi Macalin Axmed wasiirka bee'ada iyo duurjoogta maamul goboleedka Hirshabelle iyo sidoo kale qaar ka mid ah xubnihii wasiirada iyo xildhibaanada ahaa ee maanta soo gaaray magaalada Beledweyne ayaa tacsida kadib faahfaahin ka bixiyay ujeedka socdaalkooda ay ku soo gaareen magaalada Beledweyne kasnimada aad muujiseen maamulka gobolka oo uu hogaaminayo gudoomiyaha aan u arkahayo inuu yahay nin weyn oo hawlkar ah oo reer Hiiraan ay u baahnaayeen oo nasiib ay u heleen aan u arkahayo dadaalka weyn oo ay qabteen maanta waa magaalada ayaan soo kormeernay meelihii biyuhu ay halakeeyeen oo buundooyinkii iyo dhammaan waan soo aragnay dadaalka laga sameeyey sida loo dhagax dhigay sida loo carra dhigay injineerada ka qayb galayna waa waa u mahad celinhayaa dhammaan waxaa weeye musiibooyin baa dhacay maalmihii dhawaa oo daadadkii ka dambeeyey dagaalaa dhacay dad badan baa ku dhintay madax iyo xildhibaano iyo kulli iyo dad askartii iyo ciidankii waa waa lagu waayay waa arrin nasiib darro ah oo in badanba waddanka kan ka soo jirtay ama stateka ama Soomaaliya oo dhanba ka soo jirtay arrintaasna kulleeytaba waa wax iska dhibaato ah oo jira oo u baahan kulleeytaba xal in laga gaaro nooca uu noqdaba in xal laga gaaro taasna ma aha Soomaaliya iyadoo bil Ramadaan lagu jiro inay hagaagsan tahay in la banaysto qof iska socdo oo abriya oo meel iska marahaya in macnaha dhiigiisa la banaysto meel ay kaga qoran tahay diinteena iyo dhaqankeena ma uu jiro horeyna uma dhici jirin waayadii hore qof iska socda in la iska dilo safarkeegu dhinacu ugu xoog badnaa awalan inaan ogaano dadkeena iyo xaaladiisa marka ku xigta 8 bishii naga dhamaatay shirkii ku soo gabagaboobay deegaanka Matabaan degmada Matabaan aan iraahday oo lagu heshiisiinay laba beelood oo walaalo ah oo wada deegaankaas si xaaladoodii meeshii aan uga amba qaadno u dardar gelino muhiimadu waa noogu dirtay socodkeena dagaalkii ka dhici jiray Baanyaali area ee dhulkaas oo wajigiisa kooban lagu soo gabagabeeyay meesha la yiraahdo Matabaan inaan wajiga laba dardar gelino safarkan horta muhiimadu sidaas ay ahayd gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabelle Cabdullaahi Axmed Maalin Sufuro ayaa soo dhaweynta wafdigan kadib waxa uu ka tacsiyeeyay geeridii ku timid labada xildhibaan ee ka tirsan baarlamaanka maamul goboleedka Hirshabelle oo ay shalay gelinkii dambe al-shabaab ay ku dileen inta u dhaxaysa degmooyinka Balcad iyo Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe halkaas oo ay marayeen xildhibaanadaasi waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun geerida shalay ku timid xildhibaanada iyo ciidankii la socday waxaan leenahay ilaahay ka raali noqdo ilaahay ha aqbalo ilaahay ha u dambi dhaafo bedelkoodana mid khayr qaba Allah ka dhigo insha Allah masiibadaasina waa masiibo reer Hirshabelle dhammaantood ku habsatay waxaan leenahay marka inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Khalid Maxamed Ismaaciil Kacse telefishinka Somali News Beledweyne